الحمد لله ثم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. إخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى أيام هذا الأسكال عليه إنه سورة قلي إن المركة لكلنا haddaba maxaan idin wada walaalayaal sida caadaduna ahayd mar walba waxa aan isleeyahay dadku way ka faa'iidayaan oo faa'iidooyin fara badan ay ku jiro ee cibrooyin ayaa ku jiro aan isleeyahay ayaa mar walba idin soo xula walaalayaal. maantay qisada aan rabay inaan halkan ka soo jeediyay waa qiso run ahaantii cajiib ah oo na wada taabanaysa dhammaanteena. qisadan waxay ka dhacday carigaas iyo Sacuudiga ay ka dhacday, waxayna ku dhacday wiil dhalinyaro ah. shaabun jia ila jaamic raajici fi Sacuudiya, meeshaas ka dhacday Sacuudiga, masaajid ku yaala ayay ka dhacday masaajidkaas raajici la yiraahdo ayaa waxaa la keenay wiil aabihiis ayaa keenay. wiilkaas waa uu geeriyooday walaalayaal, shil baabuur ayuu ku dhintay. dabeetana aabihiis ayaa intuu soo qaaday masaajidka, wuxuu leeyahay qeyb meedka lagu dhaqa. qeybtii ayuu keenay. ninkii muqasalka ahaa ee dhaqay meedka walaalayaal ayaa wuxuu bilaabay inuu meedkii dhaqa masaajidka gudihiisa. wiilka wiil carab ah ayuu ahaa, wejigiisu wuu casay wiilkan. dabeetana maxaa dhacay walaalayaal, ninka muqasalka ahaa ayaa ka sheekeynaya. wuxuu yiri yataghayyar wajhahu tadrijiya u fiirsa. wiilka wuxuu ahaa mid cas wejigiisa, wuxuu bilaabay yataghayyar tadrijiya inuu isbedelo cunugii oo casaankii intuu iska bedelay uu iska rogay ayuu wuxuu u leexday dhinacaas imaaraan uu noqday wiilkii. wax yar kadib dhaqitaanka isagoo sii wada haddana maaraankii wuu ka sii wareegay, madow ayuu isku bedelay. carab ayuu ahaa wiilkan, u fiirsa. wiil yaroo qurux badan oo cas ayuu ahaa, wuxuu marka dambe isku bedelay madow afrikaan oo isku bedelay sheekh. from Arab to Africa. afrikaan noqday afrikaan sheekh. فخرج الذي يغسله مسرعا خائفا. wiilkii wax dhaqay muqasalka ahaa ayaa albaabka soo jabsaday oo orod ayuu guriga ugu soo baxsaday isagoo cabsan oo aad iyo aad u cabsanay wiilkaas. dabeetana dadkii banaanka joogay ayuu weydiiyey, sa'ala can abi ayuu weydiiyey, ku aaway abi wiilkan aaway abiis. markaasay waxay ku dhaheen حد لو حقو تاني نعس كفيري يقف في تلك الزاوية لابكاس كفيري وذهب فوجده يدخن. أفرس أحبتي في الله حيش درد ما شان تعالى دتكي بنانك الجوغي أيو ويدي وحو كجري ورويل كان ميتك أبيه أو وحيدهن أبيس هاد لو ميشان وتاغناي لابكاس كفيري نعس كفيري سو أرادينه مركدا ولا ليالو وحو أركي أبيه وميل لاب كجرو oo xabad sigaar intuu shitay oo cabaa aan ka qasnayn. ya allah meeda u yaala waa wiilkiisii. dadkii waa murugaysan yihiin, isagana xabad sigaar intuu shitay ayuu cabayaa meeshaas wala taagan xisho darada. ninkii oo wax dhaqay ayaa yaabay, muusan filnayn hadee kamuusan filnayn sama. dadkii kale oo meesha ka soo qayb galay ayaa murugaysan. isagii wiilkan jirkiisa uu ka soo go'ayna kama qasna, sanka u qiiqaya, afka u qiiqaya, indhaha u qiiqaya. isagana maal waa wada adduunka loo ku jiraaba ninkan. waa steam kale ku jiraaba. subhanallah malik ninkii ayaa intuu yaa wuxuu yiri
وفي مثل هذا الموقف تدقن وري هبار وابا قبطاه يقول ما بقومنيدي waxaan ku weydiiyey ma meeshaan oo kaleeta ayaa sigaar lagu cabaa waa masaajid ko meedaa yaala waa cunigiisa haddana meedku waaba kaliyahe waa cunigiisa waa wiilkiisa oo jirkiisa ka soo go'ay wuxuu yidhi maba danqanays miya aduu yidhi beer nax maba ku yamiya maba murgoonaysid qiyaamaa jirtay iyo qabrigaa jirtay waa la dhimanaya waxaas ma jiraan wuxuu yidhi taas ha ii dambaysay mar kalean ka wada hadlaynaahe waxaan ku weydiiyey akaana yusallii wiilkaada ma dukan jiri war wiilkaan ma dukan jiri ii sheeg miyuu dukan jiri ninka qaala laa aclam wuxuu yidhi ma ogi u fiiris aabbiyaal badan aa ogeysma aabbiyaal badan aanan ogeyn carruurtooda wallaahi maa kaana yacrifu salaa uu yidhi iska dhaaf inuu salaad dukan jiree salaad aad ka hadlaysa adigee wallaahi wax salaad la yiraahdo muusan aqoon hataa yidhi maba aqoonin salaad wax la yiraahdo dee maanta carruurteena iyo anaga xaggeen kala joognaa hooyo carruurtaada maxaad bartaa ma adduunyaad bartaa mise rabbigoodaad bartaa aabe adaan kula hadlayaa ma adduunyo ayaad carruurtaada kula dadaashaa mise diinta ilaahay rabbigoodaad bartaa dugsi sare uu ii dhimay wiilkayga jaamacaduu ka baxay PhD uu qaatay yaa degree uu qaatay waxaasaa maanta ku faannaa anaga hore jaamici waa lagu leeyay wiilkayga jaamici waay wiilkaada maxay ii sheegaysaa ma wiilkayga ma wiilkaada gaari karo ku leeyay wiilkayga waa jaamici waa professor ku leeyay waxaasoo ku faanaya salaadna sida loo dukan xataa maqan waa professor aan salaad aqoonin professor PhD wata oo salaad aanan aqoonin waxaa dhaama qof wiligiis aan iskuul aan aadin oo diinta ilaahay yaqaana dhaama 100% adduunyada maanta carruurteena kula dadaalna ilaa rabbigoodana waa ka jarnay oo rabbigooda maba aqaanaanba وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته qof kasta wax baa la raaciyo yiri nabi sallallahu alayhi wasallam wixii la raacin waa la weydiin doonaa maalinka qiyaamada la taga awlaadaada waa lagu weydiin doonaa hooya awlaadaada carruurtaada waa lagu weydiin doonaa maxaad dhihi doontaa aabe awlaadaada waa lagu weydiin doonaa maalinka qiyaame maxaad dhihi doontaa jawaab diyaarsan mid kale walaalayaal awlaad hadad adduunyada kula dadaashay markaad dhimatid kuma anfacayaan awlaad diinta aad kula dadaashay way ku soo xasuusanayaan markaad dhimatid way ku soo duceynayaan waladu saalix ayaa la yiraahdaa saas darteed saddexda qofka markii uu dhintay saddexda camal ee qofka aan ka go'aynin ee u sii socon doonto markuu dhinto waxaa kamid uu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam waladun saalihun yad'u lahu wa cunug baari ah oo diinta ilaahay lagu soo barbaariyay oo rabbigiisa yaqaan oo ku soo duceeyay hadda midkaan oo sida oo kale u yaala oo adduunyo ma wax kale aan aqoonin haddii uu dhintay muxuu ku soo duceyn waaba kaana wuxuu ku leeyahay habarka xumay duqu xumay ilaahay ii dhaafiya ma hadii shuur iska dhab adaa uu ku hawara badalku ku soo duceyn lahayo ninkii wuxuu yiri misaana ha mawmeeda ku yaala sigaar macawaysa fakhud ibnuka wallahi la aghsiluhu fi hada almaqsud qaado yiri cunugaada odayo xunka ah oo sigaar dhuq ah odayo sigaar cabka ah ee sanki iyo afki iyo indhaha u qiiqayo cunugaada qaado yiri wallahi inaanan u dhaqayno yiri inaanan ku dhaqayn cunugaada yiri qaada idaaf bal ha ku dhaqday ولا ليال ثم حمل لا يعلم أين ذهب به وقعت إنه صار صدي
waxaan baarsaday waa loo jeedi laakiin meeluu la aaday ilaa hadda lama garanay wuu la tagay inuu la sii socdo uun la sii digdigleyna waa uun loo jeedi laakiin ma qashin qobow ku tuuray ma waraabow sii ma isagaa aastay ma gurigoo dhex dhigtay ilaa hadda lama garanayo waxaan baarsaday subxaana allahi malik alqudus nabigeena hadalka ugu dambeeyey markuu dhimanaya muxuu ah assalaa 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 الصلاة وما ملكت أيمانكم ورصلاة إسكيل عليه وحيالها قعمين مدكتي أهناتي وأدومها وفرس يعني هذا الرسول وقدم بها دوستاس معيار عيارها ولا لين رسول كان دردار كيس وقدم بصلاة أهل أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح عمله كله وإن فسدت فسد عمله كله maalinka qiyaama shayga ugu horeeya waxa ugu horeeya qofka laga xisaabinayo waa salaadaada haddii ay ku hagaagta camalkaada inta soo hartay oo dhan salaadaas ay ku dawfiirsan yihiin way hagaagayaan salaadaada haddii ay kaa halaawdo oo salaadaada ay kaa halaawdo walaalayaal inta kala soo harteen camal kale soonow zakow xajow sadaqow kulli waxba lagama soo qaaday salaadaas ayaa xukumaysa oo joogta ay dab joogaan dhammaantood waa dukadaa kawa soo qaata waa dukadaa salaadaas ay u dugtaa haddana waa lagu dhagan kii aan dukanayn baabkiisu waa sidaas asiga warkiis ma jiro kii dukanaya haddana waxaa leeyahay war ninkaan dukanayo salaadaada miska saxda intaadan dhimanin nabigu muxuu yiri sallallahu alayhi wasallam maalinka qiyaamo waxaa la keen doonaa nin 60 sano dukan jira adduunka markii joogo wiligiisna hal salaad aan laga aqbalin ya allah todoba 60 sano ay dukan jiray waa cumrigiisa oo dhan dee nabigeena muxuu yiri sallallahu alayhi wasallam ummadeyda cumrigooda wuxuu yiri ma bayna 60 wa 70 ummadeyda cumrigooda waa yari nabiga sallallahu alayhi wasallam waa 60 iyo 70 u dhaxeeya inta dhaafinaysa waa yartahay waa cumrigiisa oo dhan 60 sano dukan jiray wiligiisna hal salaad laga ma aqban walaalayaal sababtu waa la weydiiyay saxaabadu waxay dhaheen rasuulka ilaahay sabab maxaa dhacay noo sheeg aan iska ilaalinay wuxuu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam marna sujuud ayuu qaldi jiray oo rukuucda ayuu sixi jiray marna rukuucda ayuu haleyn jiray dad soo ma arkin sujuudda aan ku xasilaynin dad soo ma arkin rukuucda aan ku xasilaynin dad soo ma arkin istaagga aan ku xasilaynin oo salaad waxay dukanayaan oo isdhaafis ah culays inay ku tahamoodaa waxay leeyihiin salaadii baan iska soo tuuraya waxaad moodaa culays dusha ka saaran uu iska soo tuuray oo kala moodaa walaalayaal salaadu waa raaxo qurratu ayni uu nabi sallallahu alayhi wasallam salaadu waxaa la yeelay raaxadeeda ayaa la yeelay nabi sallallahu alayhi wasallam ilqabowsigeeda waa salaadu nabi sallallahu alayhi wasallam haddii aad dukanaysina dukashadaada iyo salaadaada iska hagaaji walaalayaal yeysan kugu dhicin ninkaas 60 sano dukanaya wiligiisna aan hal salaad laga aqbalin salaadaada inay khushuuc lahaataa loo baahan yahay oo markaad dukanaysid inaadan xafiiska aad calculation aadan sameynaynin loo baahan yahay markaad dukanaysid inaad xisaab xir waa inaadan sameynaynin qofka markuu dukana wuxuu ku leeyahay 300 waxa ku dartaa 200 500 ka gooy 100 600 400 soo baxay war 400 intee aaday xilliga salaadu wuxuu maqli un assalaamu calaykum waraxmatullah assalaamu calaykum waraxmatullah isagoo lagu soo baraarugi maanta ma qalbiisu maqan waa joogo maqan weeyaan salaadaas joogo maqan ilaahay waxba kuma falay ilaahay salaada noocaas oo kale waxba kuma falay walaalayaal haddaba intay nafta noogu jirto oo jaaniskan aan ka faa'iideysan intaan jaanis haysan waxa weeyaan waa intay nafta noogu jirto bas maalinka oo dhabarka laga taabto oo la isku imaado oo lagu dhahayo soo dhiib baasha waqtiga waa dhammaad markii lagu dhaho markaas waxaad qaban kartaa malaashay qoraxda kugu dhacday
albaabada kulli waa kaasoo xirmeen fursadihii dhammaal oo lagu sii waa iska dayacday yaa laytani shalaytadeedii waxba kuma taras markaas nafteydan aan ka bilaabo naftiina waxaan u dardaarmi in waqtigeena aan ka faa'iidaysano oon salaadaha aan iska ilaalin aan ku dadaalno salaadaha khushuucdooda arkaantooda shuruudahooda aan ku dadaalna aan iska ilaalina waxyaalaha salaadaheena burinaya walaalihiin gaarsiiya waa inuu fiidiyoga xiga hadduu ilaah yiraahdo hada wabillahi tawfiiq wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam